Dagaalkii raabka oo mar kale dib u bilowday. Fadhiiso in badan waad soo faantee, raabkana maanta aniga maamulee. Waa erayo raab ah oo gantaala isla mar ahaantaana Sharma Boy uu ku garaacayo Alfanaan Ilka Casaqays. Xogo xasaasiya iyo muuqaal kaa qarsoon daawade iyo xogta dagaalkan ayaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa. Muuqaalka like oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade. kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeennan Ducaysana Media oo aan ku eegi doono warbixinteennan ama muuqaalkeennan xog xasaasiya isla mar ahaantaana ku aadan dagaal gantaalihii raabka ah oo uu Sharma Boy ku soo qaaday fanaanka lagu magacaabo Ilka Casaqays oo fanka raabka ku jira muddooyin 10 sano ahna maamulaya. Dagaalkan raabka ah ayaa waxa uu ku soo bilowday kadib markii uu soo saaray Alfanaan Sharma Boy hees uu ku karbaasayo fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Ilka Casaqays kadib markii ay soo wada saareen Ilka Casaqays iyo weliba Xariir Axmed hees inaba aan caadi ahayn oo u muuqatay karbaas, balse muddo kadib iyo mashquul uu galay fanaanka lagu magacaabo Sharma Boy oo ku sugnaa cariga dalkaasi Amerika ayaa waxa uu soo saaray hees uu ugu magac daray Ma Ogi. Karbaaska heestan iyo kilibka heesta karbaaska ah oo lagu karbaasayo fanaanka Ilka Casaqays inta aanan u gudagelin saaxiibayaal waxaa heesta qaybta aragtida dadweynaha ama commentiga ka soo dhiibtay aragtiyo kala duwan shakhsiyaad caan ah, balse aanu eegno Cabdi Askari Tube oo ka mid ah YouTuberada kuwooda ugu caansan isla mar ahaantaana soo geliya heesaha si aadan ugu duundholeela arrimaha fanka ayaa waxa uu qaybta commentiga ku soo yiri qosol ayuu ku bilaabay boowa ma soo dhaantaynaa mise hooska tuurkan soo afjarnaa, taasi oo la micno ah annaguna dhaantada miyaan soo qaadnaa oo Ilka Casaqays ayaan la safannaa mise dagaalkan ayaan soo afjarnaa. Balse gantaalkii uu Sharma Boy xabadka u geliyey Ilka Casaqays ila milicso daawade. Muddooyinkan dambe waxaa fanka maamula sida dhammaan dadweynaha idil ay wada qirsan yihiin oo cirka isku sii shareeraya markii loo fiiriyo dhanka raabka, walow ay kala duwan yihiin dhammaan fanaaniinta raabka qaada. Sharma Boy ayaana ah muddooyinkan dambe qofka ugu hadal haynta badan xagga raabka ah, waxaana uu ku soo shaac baxay sanado yar gudahood isaga oona ku tillaabsaday horumarro la taaban karo, waxaana uu haatan ku faanaa inuu haysto lacag isaga ku filan, magac iyo weliba dhaqaale kale. Haddaba daawadayaal, waxaana sidoo kale markii dhanka raabarada la fiiriyo mar kasta dhacda in laba raabar ay isdagaalaan iyadoona ay hawada isku marsiinayaan heesa kala duwan. Muuqaalkeennan like oo subscribe rukumo channelkeennan Ducaysana Media oo gambaleelka u furo. Dhanka Facebook haddii aad naga daawanaysana like saar oo follow dheh page-keennan Facebook ee Ducaysana Media sida aad ula socoto xogaha aan soo gelino. Ku mahadsanid daawade. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadiino.